munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo ururka arrimaha bulshada ee Hage uu xilka ugu kala wareejinayay gudoomiye hore ururka Hage Maxamed Cabdilaahi Muuse iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee ururkaasi Injineer Cabdiraxmaan waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xoghayaha dawladda hoose degmada Burco Maxamed Sheekh Ismaan Nuur mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Professor Axmed Najaac gudoomiyaasha ururada arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer aqoonyahan iyo badi haldoorka gobolka Togdheer iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan ugu horeynba Xamdi Xuseen Kaahin oo ku hadlaysay afka ururka Hage ayaa ka sheekaysay shaqooyinka ay ka qabtaan gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladeedii waa urur shaqeeya arrimaha bulshada waxaan caawa u fadhinaa runtii munaasabadan aan u fadhinaa tahay xil wareejin waxaan xilka u kala wareejinaynaa runtii laba gudoomiye soo hayay maxay ahayd muddo maxay ahayd u soo hayay xil ururka iyo gudoomiyaha runtii maanta la rabo inuu qabto muddooyinka soo socda ama waqtiyada soo socda xilalka ururka runtii Hage waa urur ku hawlan arrimaha bulshada waa urur ku hawlan runtii way farabadan yihiin ururada runtii gobolka ka dhisan shaqooyinka ay qabtaana waa la wada garanaya kuwaas buu hareer haya wuxuu u taagan yahay inuu bulshadiisa runtii meel gaarsiiyo sidoo kale runtii wuxuu qabtaa ama uu u taagan yahay horumarinta bulshada gobolka Togdheer runtii wuxuu heegan ugu jiraa inuu maxay ahayd ka gudbo gobolka una gudbo maxay ahayd daafaha wadankeena ama jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu runtii ururkani soo jiray muddo dhan 4 sano waxa la aasaasay 2016 bishii 9 keedii waxa laga joogaa muddadii la aasaasay muddo ku dhan 4 sano runtii waxa la soo qabtay gudoomiyaal kala gedisan ayaa xilal ka soo qabtay wuxuu soo maray marxalado kala gedisan wuxuu runtii ka soo gudbay caqabad fara badan wuxuu alxamdulillah maanta joogaa runtii heer uu ku faraxsan yahay maxay hagaahana ururku ku faraxsan yahay bulshadana runtii uu ugu jiro mansab aad u muhiim ah maxay uu ku jiro maxay ururada u qabta arrimaha gaarka ah ama u heelan inay bulshadooda meel gaarsiiyaan sidoo kale waxa hadalka isu daba maray labada gudoomiye mas'uuliyadda ururka la kala wareegayay aqoonyahan xubno ka socday ururada arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer macallimiin iyo sidoo kale xoghayaha dawladda hoose degmada Burco waxayna ku ammaaneen shaqada fiican ay u hayaan bulshada gobolka Togdheer iyagoona u hambeliyay gudoomiyaha cusub ee ururka Hage siina sabootiyay gudoomiye hore ururkaasi waxaana kamid ah hadaladoodii taariikhdu tahay 6 bishii 11 2020 waxaan xilka ururka Hage oo soo hayay muddo 1 sano insha Allah ku wareejin doona walaalkay Cabdiraxmaan oo isna ururka memberka Hage saaladii sheegay ama magaca ka muuqato marka hore xogtiisu waxa ku dhantay magaca marka uu leeyahay Hage waxa weeyaan dabcan dadka bulshada gobolka Togdheer wixii aanu ku tari karno in aanu tilmaano aanu waqtigeega uga jari karno iyo dadaalkeega ururka Hage muddada uu jiray wuxuu ka shaqeynayay ma uu asaasan yahay arrimaha bulshada waliba khaasatan arrimaha loo yaqaano marka loo eegayo baahiyaha asaasiga ugu jira oo ah waxbarashada waliba waxaanu si xoog ah si targetka u saari jiray waxbarashada dadka waaweyn waxaan insha Allah taala anigu barnaamijyada ay qorsheysan aan qaban doono kamid ah barnaamij maadaama dadkeena imka lagu ibtileeyay baraha bulshada gaar ahaan Facebook barnaamij weyn oo la magac baxay macnaa wacyi iyo waxgarad barnaamijkaas insha Allah aan ku soo martiqaadi doona hadba hal doorka gobolka oo aanu kalmid 15 daqiiqo kaga qabanayno bulshadooda ay ugu faa'iideynayaan insha Allah waxaan jecelahay dhamaantiin ku soo xirantaan page-ka aan Facebook ku leenahay macna walaalkay Cabdiraxmaan isku cusbino horaan wada shaqeynay insha Allah isagana waxaan rajeynayaa inuu ku soo dhawaado miidaanka ururada sidoo Maxamed noola shaqeeyay insha Allah noola shaqeyn doono mar labaad waxaan mas'uuliyiinta halkan marti sharafta kulankan timi waxaan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ay markastaba noo garab taagan yihiin tusaale ahaan anagu wasiirka ay oodhamayna xoghaye waa wasiirka ayaga markasta wanaag iyo sharafta nala garab taagan miiska soo horeysay soo kale waxaan soo dhaweyn doonaa walaalkeen Cabdiraxmaan oo insha Allah taala isna la shaqeyn doono aadna ugu mahad celinay waxay qabteen ilaahina ka abaal mariyo miisaanka xasanaadka Allah ugu daro ayaan leenahay mawduucan ka hadlayo
kooban waxa weeye wuxuu la xidhiidhaa waxa la yiraahdo shaqadan hadda inamadu qabanayeen oo wanaagsan oo qurux badan weeye waxaan ka hadlaynaa waxa weeye inaad samaysid caado wanaagsan oo waxa weeye waqtigaaga aad ka jartid waqtigaaga inaad caado wanaagsan samaysid si aad uga gudubtid kuwa xumaan aad ka baxdid wax yar oo wanaagsan oo la timaada waxay keeni karaan mustaqbalka wax weyn caawa waxaan aragnaa hage wuxuu ka mid yahay ururada gobolka Togdheer ka jira dad bay isu tagay wax yar bay bilaabeen waxayna sheegeen in ay wax weyn ka gaareen marka waxa weeye the small change can result a big wax yar oo samaysa wax weyn ayaa ka dhasha ereyga koobaad waxaan ka oranayaa madasha xil wareejinta ururka hage waan baarigayaa waana noo hambalyeynaya runtii xubnaha iyo maamulka kala duwan ee ururka hage uu ka kooban yahay waa mid ka mid ah ururada wax ku oolka ah ee bulshada kaalinta weyn ugu jira labada shakhsi ee xilka la kala wareegaya maxamed cabdilaahi iyo cabdiraxmaan axmed maxamed labadaba intaan aqoon u leeyahay kolley maxamed cabdilaahi isaga arrimaha bulshada un baan isku barannay ururada arrimaha bulshaduna inay isu soo dhawaadaan oo midnimo sameeyaan oo wada shaqeeyaan xubnaha doorka ugu weyn ka qaatay bal isaga iyo gudoomiye maxamed xamsi dadaalka ay geliyeen aanay jirin cid kale oo gelisay ay haayeen effort iyo dadaal weyn bay halka ku leeyihiin oo dhammaanteen aynu ugu hayno cabdiraxmaan axmed maxamed malaa intii halkan joogto markaan saa u eego ninka ugu aqoonta badan baan ahay standard 2 dugsi hoose ilaa form 4 baanu isku class ahayn dhowr wax baan ku xasuustaa howlkarnimo badan macalinkeegii maxamed shaamiyaanu idin dhuumanin wuu iska kaaya leeyahay laakiinse ilaa dugsi hoose macallin noo ahaa waxaan xasuustaa marka cabdiraxmaan runtii shakhsi ilaa xad howlkara wax badan oo activity iyo energy ay ku jiraan isku daya mar walba dadka inuu si hagar la'aan ula shaqeeyo wax badanna qaban karaya baan ku ogahay cabdiraxmaan inuu yahay waan rajaynayaa inuu ururka hage insha Allah تعالى dadaalkii hore uu ku jiray mid ka sii badan insha Allah ta'ala uu gelin doono gudoomiyaha cusubta uu duceeyay koow ilaahay xilka iyo bulshada arinka uu qabtay ilaahay uu fududeeyo gudoomiyihii horena mid baan oradayaa waad mahadsan tahay takalena reer burcana mid baan oradayaa halala shaqeeyo nimanka dhalinyarada ah ee aad ula shaqeydaya waxyaalaha aan aadka intaan ka fadhiyo uga helo waxa kamid ahaa saddex shaqo aanu qabanay ka ururahaaneed ama ururkayga dhalinyarada ee reergaabahan soor baan leeyahay oo ay ururku qabteen ka koowaad waxa weeye dhibaatadii beledweyne ka dhacday gobolka labaad baan nahay reer Sanaag ee u gurmaday ee beledweyne ka qayb qaatay ta kale waxbarashadana aad baan uga shaqeynaa taa waxa noo sii dheer waxa librariga Cergaabo oo 7,000 buug yaallo baan aniga dhalinyaro kale aan asaasnay oo aad u daayar oo jaamacadaha sanadka ku jirta xogayaha iyo wasiirkana mid baan oradayaa oo mar dhaweyd baan ninaan reer Burcaan la joogo baan ku lahaa ninkaas muxuu yahay habeen iyo maalin dhalinyarada aad ula joogaa waayo social media aad u isticmaalaa markasta aan ku arkaa sawirada soo ku jira waxaan leeyahay aanu kolba oran maayo wasiir laakiin xoraya xog haye waayo haddii wasiir noqdo waxna ka baqan inuu naga fogaado aan weyno goobuhu nagu iman jireen ka weyno sharafeena noo tahay xogayagu nin aad u daayar haddana ma aragno haddana reer Sanaag been sheegmay ma aragno haddana waxaad moodaa daadiisu iyo ismalaha iyo sidoo bulshada ugu shaqeeyo munaasabada tan qiimaha badan ee xil wareejinta baytul qasiidkeedu yahay in loo kala wareejinayo gudoomiyihii hore ee ururka hage Mr Maxamed iyo gudoomiyaha cusub Mr Cabdiraxmaan waa baarigeena guud ahaan waa hambalyeynayna oo soo dhaweynayna insha Allah ta'ala marka hore waxa lagu celceliyo halka ka maqlayseen xogayuu wuxuu ka tirsan yahay ururka hage oo kuma aha marti waa run been ma aha waa ka tirsanay xamde iyo qoliyaha halka soo fadhiyona waa soo garanaa doo ururka waa ka mid baanahay 2016 waa ururka la aasaasay mooyee iminka in laga bedelay kala mooyee qol yaro ku yaala xaafadda leeyahay Abu Dhabi ayaan kaga qayb galo